السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرين لوغو مرغودو إناد مقاشد قف مسلم وليبا صومالي بالغوبي وحانا لوغوبي قبيل درتيز ولا ليال ميانا أوغين قبيالة إني أحنتهي ميانا أوغين إن الله سبحانه وتعالى وسرالك إهن قبيالة ميانا أخرنين هذلك الله سبحانه وتعالى ولها وحايدين كو كرام بدن وحايدين كو شرف بدن قفك الله سبحانه وتعالى كعبسد هدو الله سبحانه وتعالى قبيالة إيه قبيلك وخيمة حقيس كلها هاي وإنو شيء لها لكن الله سبحانه وتعالى قبيلك ما في دينين وحيدي وحايدين كو شرف بدن إذن كو خيمة بدن متك الله سبحانه وتعالى كعبسد آوي خيمه شرفك ونقولها قفك مسلمك آوي خيمه أولها قفك لا إله إلا الله لهدو محاد أجبتين ولالكين محاد أجبتين ولالكين محاد أجبتين قبيل درتيس قبيلك الله سبحانه وتعالى نمو يدينا مالك قيامه الله سبحانه وتعالى وحولنا ويدينا أعماشنا يا وحيابها أن دون المكة أنجوني أنصوص ما يسنبه الله سبحانه وتعالى نويدينا نبي صلى الله عليه وسلم وحوليا هاي دونيدا أزوشو دونيدا أدماتو أو بربرتو waxaa ka culus buu leeyahay qofka mu'minka ah oo la dilo buu leeyahay laguna tunto sharafkiisa buu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaad ugu dilaysan walaalkiin qabiil dartiis ma waxaad u adkaysan kartaan cadaabka Allah subhanahu wa ta'ala Allah wuxuu leeyahay qofka mu'min u dila si kas ah asagoona og qofkaas u dila inuu mu'min yahay abaal marintiisa wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala waa jahannam وانا جهنم ان لغا سو بخينين لغو وارايو الله سبحانه وتعالى قفكاس مؤمن كدل هو عرونايا وونا لعندايا الله سبحانه وتعالى وحو دياري عذاب اد وين سومالي عذابكاس كما ما بحسن كرنا عذابك الله سبحانه وتعالى وعذاب درن maxaa keenay inaan faham weyno qiimihi iyo sharaftii uu lahaa qofka mu'minka ah maalinka qabriga lagu geeyo kaliga ba qabriga galaysid qabriga kulama galay qabiilkaada dadkaada kulama galaan qabriga waa inaan fahanno qiimaha uu leeyahay qofka mu'minka ah hormar waxaan u gaari la'nahay 30 sano aan isku haysano waa qabiilkaas dartiis ummadihi way hormareen waxaynu u hormareen waa isgacan qabsadeen annaga inaan isgacan qabsano oon wada shaqeyno maxaa diiday maxaan maalin kasta aniga isku laaynaynaa maxaan u gubnay walaalkeen qiimaha badnaa oo ku dhawaaqay kalimatu laa ilaaha illa allah goormaan fahmi doonaa kelmadaas qiimaheeda walaalayaal aan ka gaashaamano aan Allah subhanahu wa ta'ala weydiisano inaanan samaynin falalkan wuxuushnimada falalkan kasoo horjeeda bini'aadanimada yaanan isku kaashanin waa walaalkiin amiir oo idin leh ka digtoonaada qabyaalada waa qurune. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.